waxaa maanta magaalada Buuhoodle lagu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo sportska ciyaaraha ee Puntland Jaamac Faarax Muuse iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha gobolka Cayn ee Puntland Guuleed Maxamed Nuux iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Shawr Cabdilaahi Maxamed oo ka soo kicitay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland soo dhaweynta wafdidan ayaa waxa ka qayb qaatay odayaasha dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada sportska ee magaalada Buuhoodle iyo waliba sidoo kale saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo soo dhaweeyay wafdigan ka soo kicitay magaalada Garowe gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle Maxamed Cali Qowdhan wafdiga ka socda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hogaaminaya wasiirku si mid la soo dhaweynaa insha Allah wasiirka wafdiga hogaaminayo aad baan u faraxsanahay dhammaan shucuurta wada artay bulshada ay u soo baxday sida loogu heelan yahay sida loogu haween yahay oo loogu kala xariir wada aragtaan marka waxaan leenahay wasiirku soo dhawow deegaankaagii Buuhoodle oo dad badan ay aqliga geliyeen inay qaybsan tahay oo midaysan iyana waa farxad kale aad bay u midaysan tahay waxgaradkeedii dhalinyaradeedii odayaasheedii waxaanu leenahay cidiina qaybin jirtay ee ku naaloonaysa inay naqaybiso ishii bugtaay ku bikaacso waxaana sidoo kale halka ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Cayn ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Guuleed Maxamed Nuux oo mahad celiyay dadkii ku soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle Puntland kuna soo dhaweynaysay degmada Buuhoodle runtii wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wuxuu joogaa wasaaradda ugu muhiimsan ee Puntland runtiina wasaaraddiisa arrimo badan oo nagaga xaniban haday tahay xagga isboortiga haday tahay dhalinyarada ururada haday tahay shaqada iyo shaqaalaha u shaqeeya Puntland arrimihiisa u yimi ajandaha kale ee inta ka badan ee u yimina insha Allah isaga inoo warami doono soo dhawow wasiir insha Allah taala wixii war iyo hawla waa kala qaadan doona muhiimiyadda wasiirka ugu badan deegaanka u yimina waa inuu xaqab deegaanka laga qabto gaar ahaan waxa shaqadiisu ay u sayso oo dhalinyarada ciyaaraha iyo isboortiga horumarintooda qayb ka ah insha Allah taala wixii kala waran oo iska waraysanana haddii Ilaahay ka dhigo reer Buuhoodle aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidii suldaanku sheegay waa midaysan yihiin midnimadana guul baan u aragnaa waa ku saboorana insha Allah taala midnimada iyo wadajirka reer Buuhoodle iyo nabadana waa ka shaqeyn doonaa marlabaadii bar saddexaad wasiirku soo dhawow iyadoo ugu dambeyntii oo halka ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo sportska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Jaamac Faarax Muuse runtii aad iyo aad baan faraxsanahay waxaan la soo koobi karaa marka hore waxaan doonayaa inaan ka mahadnaqo soo dhaweyntan aadka iyo aadka u qiimaha badan aadka u sarreysa runtii reer Buuhoodle oo aan kala maqnayn aan kala hadhin haday tahay ciidamo haday tahay odayaal haday tahay simo haday tahay haweenkii haday tahay dhalinyaradii iyo mas-uuliyiintii kale ee kala duwaneed ee gobolka dhinac kastaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waxaan kaloo aad iyo ilaahay mahadgan ugu naqayaa inaan ku soo beeganay waqti aad u fiican oo qabow waqtigan Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Buuhoodle.